وما سنتين أنا كريبة ربلانا ما موين كبر ربلان كسعدا علي بنا وقرنا بالهم كوجو بدلين مالها أنت هاجونا ين لا بدأت تدان جونا ما ضحى الناس صارنتا هذا ما ضحى كسر تجننا وضنها الناس صارنتا ما لان كأجا بدلين مالها كلمة عن كوشة إنا دبكاينا كهلان ربنا أنا كأمانة كابتن يووي الجرجن جيدا إنا إنجل كنتا وأنت لنا نلوري فدامي جانا كنت وأكون ما سنتا ما لان كوجو علينيا عن كلام كوشة كلمة عن نويا شاين تيرا عن هذا ما يتري ويبيها سبحان كان كنتو وعن كلام كوشة نبت قليلا بحله الكرمو نبت قليلا نقوها سناو نتاون سعنينا ما لان كاجا سعنينا مرو ما لان كودا فينا مرو ما لان كاجا سعننا مرو ساعتنا كام قمنوا كلمة عن كوجو مهد علينا نبت قليلا كود دلالة تمهيم كواقف جاه وجستو قعدة ده وجستو طبعا كاسحن لكن هذا العبصاني جودها ما من السد نبت قليلا تحلو دقاي مرو ساسي النبضان كوجو سود دبيا وان كوجو دبيا ورا بلادا إسكلا إلهي وكاقا ضموي كام قاد ميسد ما لك كاجا نصعد ما سنتين مركز شرفت وسود هذا نبت قليلا سلا أو سود هذا واني وسود بينا ورا بلادان شايمن كيوت كان هاي وعيرانس دقيسنا مركا فرصة يارنا نصية وعيرانس دقيسنا فرصة يارنا نصية marka maanta aad baan u faraxsanahay maadaama uu noo horfadho madaxweyneyna gafana cali bunow mid hore waxaan rabaa inaan sheego horta mahad weyn ayaan ka sheeganaynaa gafana cali bunow aad baan mahad ka sheeganaynaa gafana cali bunow hadaa tahay haddaan ay dhalintii warable mid hore aan bilaabay waxaa weeye anaga afkii dhalinta warable aan ku hadlaayo gafana cali bunow annaka dhalin haddaan nahay waan ku qaadnay dhabarka noo saaran tahay midda hore oo aan rabo inaan taabto waxaa waaye dhankii waxaa waaye biyaha horta aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa sidii maamada iga horreysay faadimo dubad ay sheegtay annagoo aad u rafaadsan yaa biyaha meesha noo soo dhigtay oo noo surtay bohol noo surtay aad baan kaga mahad celinaa inta yaroo dhimanna waxaan filaynaa inaad noo dhammaytir doonto insha allah hadduu ilaahay yaraado waxaan kaloo aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa wiilkeenna oo county secretary oo cabdi sheekh maxmed oo asagana aad iyo aad iigu garab qabtay arrinta biyaha maadaama aan warab ladaanahay bac aan biyo ku cabbayno oo bacda a kasayso inay doofaarkii iyo xoolihii waxoo dhan ay ku cabbaayeen waxaa aad iyo aad iigu garab qabtay county secretary cabdi sheekh maxmed oo wiilkayna oo xafiiskaada ka soo baxaya mahad weyn ayaan ugu celinaa maadaama wiilkayna uu yahay maantana arrintaa ciilka waxaan u malay hadda waan ka baxnay waxa kale noo dhiman waxaa weeye biyaha noola soo jiido meeshaa noola keeno insha allah hadduu ilaahay yaraado arrinta labaad oo aan rabo inaan sheego waxaa weeye aabba cali bunow oo aan rabo dhegaha aad inaa igu dhegaysato maadaama aan shantii horena aan ku soo dooranay oo kabaha noo daba dhimeen shantana aan rabno inaan ku soo gelin annaga haddaanana dhalinta warable soomaali waxay dhahdeen marti qaad maalkaa ku qaad maganka qaad oo talkaa ku qaad ani waan ogaa sidan inaad samaynaysiin markaan rahaarun wakiil geedka oga aha waan filanahay sidan inaad samaynaysiin duqoobta kale shujuu inay cabsi qabanaani laakiin aan cabsi ma qabin bas ahsanteeni saana waa idin ducaynaynaa ducuu weliba maanta idin dhaafi sidaa ogaada assalaamu calaykum waxaa weeyo cawdaaq dadkii hogaaminaya waxba kama maqno sidaad og tihiin ani warable hadda iguma horrayso ayadoo biloweh yaan waxaan la socon jiray muxushmada aadan sugow waxaan dhahaa waa magaaladii aadan sugow sababka waxaa weeye asaga as-aasay waxaan ogahay oo kale neefkii ugu horreeyey geela lagu qalay magaaladan ayadoo ninna aan deganayn ninkii soo asaasay ninkaawa kolka insha allahu tacaala arrintiinna aadan sugow baa lagala xiriiri gafanaha waxaad hadda u sheegayso dhanna asagana wuu maqlahay waxaa jira geedka cawdaaq wuxuu soo qaaday cali qorone asagoo la fiiriyey asbaabo ilaa 2 bilood 3 bilood bay socotay in la baaro ninka cawdaaq maanta Canada u noqon karo oo uu soo qaadi karo
baaritaankii 3 bilood baa la hayay waxaan heer gaarnay markii dambe inaan guri isku xirno oo nin walbaba kitaab quraan lagu dhaariyo dadkii taagnaa oo dhan baan masaalixdiisa meesha keennay maslaxada waxay keentay oo aan aragnay inuu ninkaa 5 sano dhamaysto oo uu hogaamiyo dadkii asaga ahaa ee taagnaa waxaa ka mid ahaa muxushmuha xabad doctor xabad baa ka mid ahaa kolkii lagu dhawaaqay wuxuu yidhi aniga geedka cawdaaq baan u hoggaansamahay faataxada ha la ii maro cawdaaq baan horwadi waan tanasulay sidaa aawadeeda go'aankii baan qaatay raggana runtii waxaa laga rabaa kalsooni tolkiisa inuu tusiyo maanta ninkii kalsooni tolkiisa dusiyey ninka kale isku mid ma noqon karo kolka waxaan leenahay xabad khayr allaha siiyo allana ha barakeeyo weliba waxaan codsiyo diraynaa dadka kale ee ilmo cawdaaqe geedkaa maanta wax isku xiraaya tolka geedkaa kelibaa la hayaa tolka inay u hoggaansamaan oo ay soo reebtaan candhuuftooda gadaal u laqaan go'aanka cidda inay raacaan taana waan ka codsanaynaa midda kale annaka salaan un baan wadnaa salaan waxaan ka wadnaa suldaan deeqow oo geedka joogay oo yidhi meel alla meeshaa tagtiinba ciddii ilmo cawdaaq salaan iga gaarsiiya ducadaydana qaato oo geedkaa wuxuu ku dhawaaqay garab ha loo noqdo tii ayada ahayd baan wadnaa salaanta ma iga qaadeen salaanta duqaa iga qaada ilaan waa wax nagu raran waa taa waatu waxaan idin leeyahay oo kale adduunku ilaahayga casiiska ahaa yaa kolkuu roob ridaayo intuu ku ridi xagguu ku dhici meeshan waa roob la'aan haddaad wareegta hadda waad yaabi roobkii sannadan da'ay baa meelna ku dhacay meelna ka tegay laakiin waxaasoo dhan baa waxaa ka weyn maslaxada tolkaa ka weyn maslaxada ha la ilaaliyo gabdhaha haddaad tihiin maslaxada tolka ilaaliya haddaad tihiin rag maslaxada tolka ilaaliya had iyo jeerba maslaxada walaalkaaba khayr kuugu jirto qiimana kuugu fadhido kolka insha Allah waqtigaa kulul waxaan ka hadli lahaa asbaabihii ninkan aan u soo qaadnay baan ka warrami lahaa laakiin hadda kama gaari kariyo waqtigaa aad u kulul khayrna Allah idan siiyo waxaan leeyahay reer warable Allah idan barakeeyo magaaladu ayadoo bilow abaaba iigu dambaysay waa magaalo hadda weyne badan ilaahayna waxaan ka codsanay ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala district inuu ilaahay nooga dhigo meel keligeed uu ka soo galay ebi inuu ilaahay ka dhigo subxaanahu wa tacaala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلكيكم ري ورب السلام عليكم السلام عليكم آدان ما أنتوا فرح سناي آدي دعاء وين يقول دعاء ومهد سنتين أنا وانا إذا كبر يوحنا ما أنت لا إيمان يا نولا إيمانتين ورت خير الله يدين سيو ونوسو قابسن ترى إنا ندين شو magaaladan soo magaaladaydi maaha haddana maanta ducada wadaana maaha aadan sugo kuurasiya maya midnimo wati maanta taas waxaan rabaa horta inaad ogaatiin cawdaaq midnimadiisa iyo siyaasaddiisa iyo isku duwintiisa yaan maanta siyaasad ani shakhsiyad gaar oogu dhigay ma maqlahaysiin cawdaaq wuxuu u baahan yahay nin madaxnimo soo maray sidaydoo kale oo bara ee ninna cawdaaq waxba ka rabin oo danta cawdaaq wadayo ama danta ogaadeen wadayo ama dadka danta talamuga wadayaa loo baahan yahay oo tiisa gaar u dhigo ani horta waxaan rabaa inaad ogaatiin wiilkiina haddaan ahaa madaxiina haddaan ahaa haddaan ree warab la tihiin inaan meeshaa inaan ka soo baxo ma igu og tihiin yaa ani taasaan wadaa horta waxaana rabaa garab inaad igu noqotiin haddaan waxaan sheegay ogaadeenka waxa midaynhayo maanta waxaa way isku keenka waa geedka suldaamada ee la hagaajista ee beel walba ay ka dambayso haddii meeshaan iskugu imaani karno oo ogaadeen baan meeshan ku degannahay countigane aan wax ku wadaagi karno xisbiyaal baa la noqdee waxaa waye geedaha iyaga ee aan hagaajisanay ama maaragtay weligeennaba xeer noo ahayd inaan suldaamo leenahay suldaamaheenna marka haddii weliga siyaasadda weliba annagaa bilaabnay inaan xagga siyaasadda oga dambayno geedkeenna beelaha kale nala dega ogaadeenkana egan way nagu dayanhayaan meesha wixii annaga nalaga bartay haddana inay maaragtay aan hilfaha u qaadna ka warrama soo dhib maha yaa